بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بيت المقدس هي مسجد الأقصى يقول هان قولك بركيسان إله سبحانه وتعالى بركي قولك شام ليلة وحن دوننا إن قضية داسي سرعة إن شاء الله ذاك الدونتان إن أي سنقول بسلقاء يقولن كليا ونقول أي نقطة إنه حكبرنا ونفتي أنه تقولنا أوبرنا عيد تقارننا أي خصوصته ودب معلومات كذا عصبان يسيسه إن أي تهي قضية فلسطين وبيت المقدس قضية أساسية إسلامية وعن وطن قومنا المسلمين تكملها لمان قلت إن أي تهي مقدسات كأن أي تهي إلى هذا إيو كوكب كذا إيو أونلاين كذا عند ما أنت مودلنا هاي مركب قضية باهن إن أنا قبرناكو قوات كأن باطنا ومدنا وشاقنا قضية أساسية ومسلمين ترى كذا حيسا قضية وقتنا ولا شقية أو حل وش مركب من فلسطيني كريا لوجوي أو لي فلسطين بي والله قد معناه أساسا كاسيانا مسجد كا يدل كبركيسان أنا جو حواجب نوع dadka muslimiinta qulubtooda inaan ku xirno dhulka barakaysan inuu barakaysan yahay waxyaalaha adilada u ah waxa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjid hada wal masjid al-aqsa masajid inta loo xirxirta loo safro in lagu soo cibaadeysto darteed ma banaana markii laga reebo saddexda masjid ee uu yiri masjid al-haram wa masjid hada wal masjid al-aqsa sida nabiga uu kala hormariyay inuu kala fadli badan yahay waxa uu fadli badan al-masjid al-haram thumma al-masjid an-nabawi thumma al-masjid al-aqsa ilaahi subhanahu wa ta'ala يهود ولقود باب ويحويسين جيران دولك ويفسادين جيران ديقنا ويدادين جيران إلهي نقف وصوصات وهذه من سنة الله إلهي سنة ديسي كمتا مركا إساء وحويستان وديقا دولك قداديان إلهي وحوير ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أمريكا ما تدعم إسرائيل إلا بعقيدة دينية، هناك عقيدة دينية، ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نفهم أن المشكلة الإسرائيلية هذه لا تحل إلا إذا أيضا نحن تمسكنا بديننا ووضعنا المصحف مقابلهم. نحن الآن لا نرفع شيئا أمامهم كما قال القرضاوي في يوم، قال نحن نغني ونظن أن سنأتي بالقدس. القدس لا تأتي بالأناشيد وبالغناء، القدس تأتي إذا نحن رفعنا الكتاب في وجوههم، نقول لهم هذا كتابنا، تعالوا بكتابكم الباطل المحرف. حين ذلك ممكن أن تعود القدس إلى مجاريها. قدس قيمها إنقول هذا هاي النفوس تنا يقول هذا هاي وحكينا يا سيد الله المامي وعدل وحي كسو دقي جراي ومقدسها ظاهراوي. قدس ومسكن الأنبياء، قدس واتي نبي اللوط قام كيسي مركو عذابك كدقي وعرريوي فأسري بأهلك بقطع من الليل ماشو إلى هاي أمريوي. قدس وماشو نبي إبراهيم وجها جريوي بابل markuu ka cararay dadkii haystay. qudus waxa weeye dhulku ilaahay tilmaamay quraanka maqlayseen aayadaha caawo dhan la soo sharxayay subhanallahi asra bi 'abdihi laylan ila al-masjid al-haram. qudus waa dhulka ay ku yaalo waadi namla, qisadii namlada ku saabsanayd nabi sulaymaan ee ilaahay oo tilmaamay qalat namlatun ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaymaan wa junudahu wa hum la yash'urun. قدس واتو إلهي تلمامي وادي النملة وحكو يالا مدينة عسقلان اكتادا. قدس واتي كدعضي معركة دي لورنجري
dagaalkii dhex maray nebi daa'uud qoladuu la socday daaluud iyo jaaluud uu ilaahay tilmaamay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiira biidni illaah qudus waa meeshuu ilaahay tilmaamay inay dahiran tahay saad dhegaysanayseen taariikhda waxay u taqaanay qudus wa araadi almuqadasati daahirati min ashirki waalkufr waana dhulka uu ilaahay ku tilmaamay subxaana aladii aqsaa laba masjid baa jiray abcadu lmasjidayn buu ahaa maka marka la joogo meel ka fog buu ku yaallaa qudus taariikh ahaan siduu ustaadku ka soo sheekeeyey hal noqdaa haddaan ka idhaahdo waxay ahayd meel mar walba xuruub soo mara oo bani aadamku ay isku haystaan laakiin qudus nebi ibraahim baa dhisay waxaa la yidhi hortiina malaa'ig baa dhisaday waxaana dhisay oo kale dad banu aadamka ka mid ahoo ka taariikh horreeyay nebi ibraahim sulaymaan baa maanta laynoo haystaa qudus inay wax kaga aasan yihiin haykal macnihiisu waa maxay yacmaluuna maa yashaa'uuna min maxaariib mixraab weeye qudus haykalka laga doonayahay hal mixraabna ma ahayna maxaariib fara badan buu sulaymaan lahaa qudus looma dhisin shirki iyo kufriya waxaa loo dhisay cibaada atawxiid keliya baa loo dhisay weligeedna cibaadatu tawxiid baa lagu haysan jiray dad ilaahay yaqaan baa haysan jiray hadba ummadda inta toosanba iska leh taariikhdaa laydiin sheegay yaa qowmi udkhulu larda almuqadasa markii ilaahay uu leeyahay calaa lisaani xikaayatan calaa lisaani nabiyillaahi muusa markuu ilaahay tilmaamayo macnaheedu waxa weeye yuhuud baa tidhi annagaa naloo jeedo annagaa naloogu yeedhayay laakiin ustaadku si fiican wuxuu idinku sheegay kuwii sii joogay baynu ahayn innaguna meeshaba kuwii sii joogay ka carareen ee ay yidhaahdeen niman xoog lebaa jooga nimankii baynu ahayn waxa weeye ibraahim iyo israa'iil iyo carabi waxay ku wada abtirsadaan nebi ibraahimna masaajidka inuu dhisay waa xaqiiqo weeye laakiin kolba inta mu'miniinta ah baa masaajidka iska leh lahaanshuhu waa sidaa taariikhda cidda dhistayna waa caynkaa waxaan rabaa inaan ogaano inay jiraan rag furin ku jira oo Filistiin jooga habeenkii dhawaytana waa sheegay oo ay ugu mudan tahay anoo shacabka reer Filistiin oo dhan u hambalyeynaya oo taageeraya oo dhagax tuurkooda la jira haddana waxaan aad iyo aad u sii bogaadinayaa mudanna inaan u ducayno xarakad Xamaas waa xarakad furin ku jirta qaadadeedu maalin walba furinta ku baxayso maalin waa hadda say uga jawaabeen arrintan iyada ah runtii la yaab leh qaatay asbaabta iyagu ka xaraka ahaan waxay awoodeen habeenkii dhawayt waxaan sheegay inaan keeni lahaa haddii la ii soo sheegi lahaa mujassamka yani waxa waaye kan sawir ma aha waa mujassam qudusaa la sameeyey markaasaa la sawiray waxaa aniga ii hadiyeeyey muusa abu marzuuq 11 sano ka hor 11 sano waa haystay runtii ma aha markuu anoo dimashq jooga uu ii hadiyeynayay ma ahayn iska hadiye iyo rigaalo la iska bixinaya ma ahayn laakiin waa in qalbigaaga lagu gunto waa inaad dareentid in waxayna ka maqan yihiin waa inaad dareentid in siraac iyo hardan lagu jiro sidaasoo kale ummal islaamiya meel kastoo ay joogto dad baa jira nool dareen leh raba inay diinta nooleeyaan raba ummaddu inay guulaysato raba inay ummaddu meel ka soo baxdo dadka iyaga ah waxa la rabaa in loo helo sida hadda Salahuddin baa la sheegay iyo adeerkii Nuruddin Zik oo ka weyna madaaristi ay sameeyeen ayuubiyiintu ee ay ka shaqaynayeen muddo dheer ee ay jiif iyo joog diideen Nuruddin Zik uu dhisay memberkii meesha lagaga khudbayn lahaa marka la gaaro oo isagu uusan soo gaarin Salahuddin ku khudbeeyay waxay ahayd in dadka lagu beero inay dadku noqdaan dad goba dad mabaadiic xambaarsan dad wax iska dhicin kara dabeetana guushi waa la gaaray insha Allah taala waxaan rajaynaynaa ragga maanta furinta ku jira oo meel walba taagan oo ummadda u hiilinaya in iyagana waayuhu u soo maraan maxaa yeelay waayuhu way isbedelayaan iskamana dhashaan wuxuu anigu runtii ayadoo aan xanuun u yahayo waxa ummal islaamiya ku dhacaya haddana mutafaa'ilana haddana mutafaa'il baana waxa ii muuqda mustaqbal mushriq ah